geeduhu ama dhirtu siibitaan ama jiidid kuma koraan lamaanuhuna sidooduba qaylo iyo dagaal iyo buuq iyo madax xanuun iskuma bedelaan kumana koraan iskumana fahmaan haddii aad geed maanta beertid geedkaasi uu bilooyin ama maalmo uu jiro haddaad damacdi geedkaasi inuu dheeraado haddaad damacdi inaad siibtid si uu u dheeraado waxaad haleynaysaa waa xididada qofka aad nolosha wadaagaysaan haddaad mar walba jijiid iyo dagaal iyo isfahan la'aan aad ku wada nooshihiin adiga ayaa ku dhimanaya maskaxdu kugu wareeraysaa fahankuna uu kaa yaraanayaa waxaa laga yaabaa habeenkii inaad ku dhafartid waxyaabo aanan muhiim ku ahayn oo maskaxda ay kugu xanuunto shakiga oo kale walwalka oo kale murugada oo kale taasoo saameyn ku yeelanayso maskaxdaada iyo caafimaadkaaga guud jirkaaga xataa laga yaabo inuu isbedelo haddii aad maanta qof lamaano la tahay ama aad rajaynaysid ama aad isleeda alelehe mar uun qof baro ama aad xiriir ku jirtid ama marwo aad tahay ama mudana tahay ragga mid baan kaa oranaya dumarkana mid ragga ayaan ku hormaraya haddii aad maanta haweeney tahay muuqaal leedahay midab leedahay maskax leedahay darajo iyo dulqaad leedahay daryeel iyo diris dhowr leedahay dhaqasho iyo dhaqaale aad taqaanid raggu nabar baad ku tahay halis waayo boqolkiiba 50 ragga kale adduunka naarsiista weeye naftooda ayay jecel yihiin wax walba qofka kale uu u baahan yahay naftooda ayay la rabayaan sababtoo ah wax walba aad haysatid aqliga maskaxda fikirka dhaqashada dareenka dhaqaalaha intaba ayaga ayaa isla raba waxay ku soo wajihi doonaan ayaga ay kugu tilmaamayaan inaad kibir badan tahay qof sanka taaga waxa ayna ku dadaali doonaan inay mar ku soo qabtaan ayaga hadafkoodu yahay qofkan kibirka badan bal hal mar dhulka ku soo dhig waxa lagu soo gali doonaa waxay tahay qidad ah carab laalaadin oohin waxsiin hadiyad balan joogta baryo iyo waliba in lagu kolkooliyo ama lagu amaano ama kor lagu qaado waxa ka dambeey doona ayaadan ogeyn markii aad xirada soo gashid qofku markaas wuxuu u dareemayaa inuu adiga ku leeyahay markaas waxa koraya gudihiisa waxa laga yaabaa eragan inuu kugu cusub yahay gudaha qof walba wuxuu u qaybsamaa labo muuqaalka kore sida aad iyo arkaysid iyo gudaha dadka badankood marka gudahooda uu yar yahay waxa ay ku dadaalaan dadka kale inay liidaan caayaan aflagaadeeyaan xushmad la'aan ay kula dhaqmaan dibtoodana ay raadiyaan si gudaha ay uga weynaadaan waxaan u sameynayaan waxa ay tahay gudahooda ayaa aad u yar qof haddii uu ku caayo wuu ismuujinayaa wuxuu isku arkaa in dadka kalena ay arkayaan laakiin uma arka caaydo ku caaynayo bahdilka aflagaadada iyo xumeynta iyo gacanqaadka uma arka wax xun wuxuu u arkayaa qof muhiim inuu yahay laakiin ma ogo in gudihiisu aad u yar tahay adiguna waxa laga yaabaa inaad la yaabtid qofkii shalay carabka ku laalaadinayay ballanta kula galayay hadiyadaha ku keenayay ku kolkoolinayay ku amaanayay markaad isguursateen ama markaad isku timaadeen maxaa bedelay hadafkiisa wuxuu ahaa hal mar qofkan soo qabo laakiin ma dareensano waxyaabaha aad laheed oo dhan oo hibada ku aheed oo Ilaahay ku siiyay wuxuu u arkaa inaad kibir badan tahay haddii maalka noqonayso iyo haddii maskaxda noqonayso iyo darajada haddii noqonayso iyo waliba haddii noqonayso dulqaadka dhaqashada iyo waliba fikir dheerida waxaas wuxuu u arkaa inaad kibir badan tahay haddii uu aqli leeyahay waxaas wuxuu u arki lahaa wax muhiim ah wuxuu ku dadaali lahaa mar walba sidoo markii hore ku ahaa inuu noloshiisa inta ka dambeeyso dhan ku ahaado waayo qofkaas oo kale sida lagu helo waa dhif haddii aad maanta marka xaaladaasi ku jirtid qof shalay ku amaanayay carab ku laalaadinayay ku xushmeynayay maantana sidoo doono oo kuula dhaqmayo dhankiisa waxba kama qaldana gudaha kaliya ayuu ka yar yahay laakiin halka ay wax ka qaldantaa waa dhankaaga waa inaad dib iskugu laabataa inta aadan qofkaan baran waa inaad buugi qalin inta soo qaadatid aad qortaa qofka aad ahayd qaabka u dhaqmi jirtay qaabka u labisa jirtay qaabka u fikiri jirtay qaabka u socod jirtay qaabka u dhaqankaaga sidoo ahaa waa inaad buug ku qortaa kadibna dib ugu soo laabo dhaqankaaga hore qofkaan intaada baran dhaqankaaga dib ugu soo laabo isla markaas wuxuu bilaabayaa baryadii hore uu bilaabi jiray buu hadana dib ugu soo laabanaya go'aanka dhankaaga weey sidaad u noolaa doontid haddii aad u dhici doontid oo baryadaas hadana aad godki ku sii dhici doontid xushmad daradi waa adi wax ku yaala laakiin haddii aad ku sii fikiraysid inaadan ka jixin oo aad go'aankaani ku sii taagnaatid qofkaas mar walba booskaas uu taagnaanaya baryadaas ku jiraya calaacalkaasi carab laalaadintaasi laakiin godkiisa markaa ku soo dhacdid wuxuu u dhaqmayaa si inuu adiga ku leeyahay wuxuuna muujinayaa gudahiisa yar inuu ballaariyo waana dhibaatada badan haysata gabdhaha Soomaaliyeed ama xiriir ha ku jiraan ama xaasas ha ahaadaan xalku ma aha qofka inaad jiidid waa sida tusaalaha aan ku siiyay geedku hadaa jiidid xididada go'aya xididaduna waa adiga ayaa ku dhimanaya xalku wuxuu yahay waa inaad adiga isfahantaa qofka ma aha inaad la murantid maxaa saan u sameysay maxaa saan ugu hadashay maxaa saan ugu dhaqmaysaa maaha muhiimadu
waa anigu sidee ahay sidee baan ugu soo laaban karaa 10 sano qofkaan ahaa ama 5 sano ka hor qofkaan ahaa sidee ugu soo laaban karaa haddii aad waddadaas heshidne ha ka degin qaybtaas waxay ahayd qaybta ragga dumarka ayaa wax ka oranaya adduunka meesha doonta kaga noolow lacagta doonta yeelo muuqaalka doonta yeelo haddii hadafkaagu uu yahay mustaqbal dheer dumarka ma jeclo qofka isliida ama baryootama waxay jecel yihiin ama ay ka daba ordaan u fiirso badana waxaad arkaysaa qof guursanaysa qof aan waxba haysanin sababta ma taqaanaa waa kartida iyo ragtanimada qaabku u fikirayo waxba ma haysto shilin habeenka waxaa laga yaabaa inuusan gurigiisa la imaan karin saasoo ay tahay gabar qurux badan buu qabaa haddiid umuusa geynin ma baryootamin wuxuu u muujiyey rabitaankiisa qofka baryootama ama calaacala waa dadka ku kooban keliya inay muddo kooban keliya gabar la joogaan gabdhuhu calaacalka tirada badan waxay ka qaadaan xasaasiyad hadafkaagu waa inuu cad yahay rabitaankaagu waa inuu cad yahay baahidaada waa inay caddahay waxa aad rabtidna waa inay kuu muuqataa waa inay ogaa kartaa waxa aad rabtid haddaysan ogaa karin laba qof waxaa noqonaysaan iska daba meeraysta aan waxba u hagaagin adigana madax xanuun baa ka qaadaysaa iyaduna kuma fahmayso ciddii doontay markaas la heshiinaysaa ama la soconaysaa masiirka ayaa kugu sii badanaya maxaa qabatay marka dambena waxaa ku dambeey doontaa in shakhsiyadda ay ka halawdo oo aad u dhaqantid si qof nin raga uusan u dhaqmin caytan hadday noqonaysa afligaada hadday noqonayso haddaba taasi sidaysoo u dhicin wiil Soomaaliyeed haddaad tahay waxa aad ku dadaashaa marka hore waa inay ku cadaato war qofka maxaa ka rabtaa mustaqbal baan ka rabaa hadalkaaga ha ku cadaado laakiin haddii aad garanin qofkan waxa aadan ka rabin haddana aad isku dayaysid inaad xanibtid bo asxaabta ka jirtid ehelka ka jirtid waxaan ma qaban kartid weli iyadoona hadalkaaga cadeen baa waxaa laga yaabaa qofkaba inaad ciriiri gelisid bo dumarku badanaa waxay jecel yihiin cayaarta maskaxda haddaa isku daydid qofkan haweeneydan gebigeedaba inaad macnaha xirxirtid oo meel walba ka soo xirxirtid iyaduna way kula dheelaysaa been bay kuu sheegaysaa yaali bay kuu dhisaysaa isdabamaris bay kuu samaynaysaa marka dambena waxay ku dambaynaysaa meel kale adiga kuguma dambaynayso waayo waxay fahmaysaa qaabka u dhaqantid oo dhan marka dambena nafteeda waxay ka dhadhacsiinaysaa inaadan u qalminbo waana sababta keenaysa qofkan inuu kaa tago qofku inuu marka hore og yahay waxa aad ka rabtid markay ogaato waxay ku taagnaanaysaa waddadaasi mar walba niyadda waxay ku haynaysaa waxa aad rabtid laakiin haddaad u sheegin waxa aad rabtid mar walbana aad kula murmaysid nolosheeda inaad xorriyadda ka qaatid si inaad qabtid oo kale ama in addoommadaada ay tahay isku dhiciina wuu badanayaa isku dhiciina markuu batane cayaartaasi adille ku fashilmaya haddaba geedka siibid iyo jiiditaan kuma koree waxaad isku daydaa naftaada inaad fahantid wiil ahow ama gabar ahow halkaa inaad la fahantaa u malaynaya asalaamu calaykum